kusoo dhawo wakaalada wararka Ogaadeniya Ona. waan dhaw walaal aad iyo aad waan idin salaamayaa guud ahaan wakaalada Ogaadeniya Ona. waayahay sidoo aragtaa soo dhaweynta maanta loo sameeyay gudoomiyaha jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya halgami Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maadi. والله aad baan uga faraxsanahay shucuurteeda ma soo koobi karo runtii waxa la oran karaa waa farxad aad u weyn bay noo tahay in maanta soo dhaweyno gudoomiyaheena oo ku soo dhaweyno wadankeena gudoomiyaha muddo naga maqnaa waxaan leenahay gudoomiye soo dhawow aadna waan ugu faraxsanahay si fiican oo inoogu dhacday oo nabadgelyaha runtii shucuurteeda lama soo koobi karo gabi ahaan shacbiyada ka soo qayb gashay ee meesha ku suganna aad bay runtii ugu faraxsan yihiin waa dad saaka aroortii baa la soo baxay wax kharash oo lagu bixiyay ma jirto cid dhaqaale ku qaadanaysa ma jirto qof walba waxa wada wadaniyad iyo dareen iyo qadiyad iyo dareen iyo jacayl uu jecel yahay gudoomiyihiisa waa gudoomiyaha kaliya ama hogaamiyaha kaliya dadkiisu ay jecel yihiin ay ku kalsoon yihiin ay ku qanacsan yihiin isagoo wax dhaqaale siin wadnaasantii ka cad fataxahan adiga farxad intee laga maanta dareemaysaa والله runtii saan hore u sheegay farxadda maanta lama soo koobi karo waayo waxaan gudoomiyaha in badan ama hogaamiyaha in badan ka dhursugay ba maanta noo imaaday aad baan ugu faraxsanahay aragtiisa kaliya farxadiya ay walaal ma soo ku soo dhawo wakaalada wararka Ogaadeniya aad magacaaga ku bilaabayo magacaygu waa Faadimo Xuseen Maxamed ama Farxiyo Xuseen Maxamed ninba si yaqaano waayahay sidoo aragtaa soo dhaweynta maanta loo sameeyay gudoomiyaha jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya halgami Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maadi. gudoomiyaha jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ee xaqa ah maanta waxaa loo sameeyay soo dhaweyn aad u qurux badan oo dad tiro badan oo wadaniyiin ah oo muwaadiniin ah oo aad u sharaf badan ay ka soo qayb galeen ummadii meesha isugu timid farxadeeda lama koobi karo gaar ahaan aniga farxadaydu maanta qiyaas male aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta quruxda badan ee gudoomiyaha maanta loo sameeyay waad maasan tahay nafteed horta Faadimo ku soo dhawo walaal wakaalada wararka Ona aad baad mahadsantiin waan idinka mahad celinayaa soo dhaweyntiina aniga magacaygu waa Bedel Maxamed Cabdullaahi waxaan ahay xisbiga Ezeema haddana jacaylka aan u qabna halganka xornimo doonka iyo gobonimo doonka ayaan u soo dhaweynay gudoomiyaha jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya mudane Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maadi waxaan ku faraxsanahay hawlaha ay wadaan iyo halganka ay ku jiraan mar walba heel iyo hoobaan la garab taaganahay waxaan leenahay dadaalkiina halka ka sii wada annaguna wixii garab iyo gaashaan ah inkastoon xisbi ahaan kala duwanahay haddana aad baan idin taageersanahay anigoo maaragtay ku hadliya magacayga ayaa waxaan leeyahay dadaalkiina halka ka sii wada insha Allah ay farxad inta laga dareemaysaa maanta gudoomiyaha soo dhaweynta gudoomiyaha runtii farxadeeda lama soo koobi karo hawsha ay ku jiraan iyo dadaalka iyo maaragtay inay guumeysiga ka soo horjeedaan iyo inay dadkooda xornimo ku noolaadaan ayay u halgamayaan taasna qof walba oo Soomaaliyeed inuu ku garab istaago oo maaragtay uu wixii ku tari karo ama maanaha aata ama dhaqaalaha aato ama maaragtay taageero kala wahaatay in lagu garab istaaga ayaa ila mudan oo dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed u soo jeedinaya waa mahadsantahay walaal ku soo dhawo wakaalada wararka Ona waan dhawahay magacaygu waa Galaal Xoor naftoor Galaal Xoor dadku waa saddex waa dulmada ceelan iyo daacad hungooday iyo digdigla dhargay saddex weeyaan dadku marka digdigla dhargaysa waanu garanaynaa halkii waa u tagay waanu garanaynaa intaas kaga tagayaa waxaan la hadlayaa inuu ereyga u dirayaa nin dadka ku sheegaya dhalinyartu inuu hunguri kala jabiyaan la hadlaynaa dhalinyartu hunguri ma kala jabiyo mabdaba dadka kala kaxeeya farinta dad baan u dirayaa oo khaasa intaas kaga baxaya qodobka labaad maanta waxaan ku faraxsanahay si fiican soo dhaweynay gudoomiyaha ururka Ona Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi oo muddo 5 bilood ku dhaw dalka dibadiis ka maqnaa shaqo hawlaan u maqnaa si fiican maanta soo dhaweynay aad baan ugu faraxsanahay seelaftisaan nafta horeynaaba iska daa halganko shucuubinta laga dareemaysaa soo dhaweynta gudoomiyaha maanta aad baan farxad dheer baan dareemayaa waad ku mahadsantahay anaguna waan kugu faraxsanahay madasha soo dhaweynta gudoomiyaha Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maadi aad iyo aad walaal ku soo dhawo wakaalada wararka Ona adoo magacaaga ku bilaabayo magacaygu waa Ilhaan Garaad oo ku dhawaay ay shucuurtaada maanta maxaa u maasay soo dhaweynta gudoomiyaha Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maadi gudoomiyaha xisbiga Ona والله شعورتيدا lama soo koobi karo way gudoomiyihii analifta ama deegaanka oo dhan analif bas yaan dhignay baan soo dhaweynay dareenkayga waxaan ku cabbiraa ma garanayo aad baan u faraxsanahay maanta in intee leeg baa soo dhaweysay aad dhigi kartaa shacabka reer Ogaadeniya ee ku dhaqan magaalada Jigjiga
والله boqolkiiba boqol dawada aragtaa calaamadu si uu babanayaan magaalada kala badh ma joogto marka madaxweynaha sida loo soo dhaweeyay maxaan ku dhahay gudoomiyaheena walaal ku soo dhawow wakaalada wararka ona ku dhawaay walaal aad ma santaa aad baan ugu faraxsanahay shucuurtoodana waxaan la qaybsanayaa dhammaan inta ummadda meesha isugu timi xalqaya waxaan leeyahay soo dhawow gudoomiyaha ruuxiga ah Sheekh Cabdiraxmaan Mahdi Mahday waan ku faraxsanahay imaantiisa shucuurtoodana wallahi lama soo koobi karo aad baan faraxsanahay maanta ayo walaal ma hasan waan dhawahay aad iyo aad baad ma santiin magacaygu waa Najib Maxamed Xuseen ayo walaal soo aragtaa soo dhaweynta maanta loo sameeyay gudoomiyaha jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya halgami Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Mahday wallahi aad iyo aad baan soo dhaweynayaa gudoomiyaha jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya Dr. Mahday kulay maantana shucuurta kulay lama koobi karo aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan soo dhaweeyna aad iyo aad baan ugu hiranayaa oo maxay aan ugu talagalay inaan waqtiga ku soo lumiyo gudoomiyaha ويا شعوب انت لك بعد ما انت دريميسا سو dhaweynta gudoomiyaha wallahi boqolkiiba lama soo koobi karo meel inaan soo joogay inaan meel kale joogo isma kala garanayo aywa sidoo kale anaguna waan kula faraxsanahay soo dhaweynta maanta loo sameeyay gudoomiyaha Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Mahday walaal mahasanta walaal ku soo dhawow wakaalada wararka ona walaal waan ku dhawaayay magacaygu Cabdullaahi Kurmaan ay seedo aragtaa soo dhaweynta maanta loo sameeyay gudoomiyaha jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Mahday wallahi waxaan ku maanta shucuubteeda lama soo koobi karo waxaan kamid ahaa dhalinyarada security-ga iyo dhalinyarada qaban qaabinaysa hawsha wallahi maanta shucuubteeda lama soo koobi karo maanta mar baan xitaa farxadda isma garanayno meelaan joogay wallahi waxaan ku soo cabiro ma garanayo waxa meesha isoo ugu yimaaday taageerayaal aad u badan xubnihi jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya magaalada Jigjiga waxaan ku waxa ku dhanaa gudidii fulinta golaha dhexe waxa joogo oo kale rag ayaguna fara badan oo meelo badan ka yimaaday waxa ka soo qayb galay kala soo dhaweynta gudoomiyaha ku-xigeenka jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya mudane Daahir Maxamed Cali waxa kale ka soo qayb galay xogayaha ku-xigeenka golaha dhexe mudane Axmed Ilkacase waxaan ku maanta looba ma kala maqneen maanta ninkii saxiixiisa dib u dhalay waxaan ku maanta soo dhaweyntu inaba waxaan ku waa annagii joognayba dadka maxamed meelaha kale ka daawan doona annagii joognaa islaam baa yaa hawsha si la laaba marka dadka kalena waxaan leenahay dhammaantiin inta kala socota warbaahinta iyo inta joogtada aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa aad iyo aad baad mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh walaal ku soo dhawow wakaalada wararka ona adoo ku bilaabaya magacaaga waan ku dhawahay magacaygu waa Cabdirasaaq Xasan Xuseen wakaalada ona iyo maxaan ku dhahay xubnaha ka howlgalaba aad baan u salaamaya marka labaad maanta jawiga ama farxadayda maanta ma qiyaas karo because of waxaan soo dhaweynay anuu gudoomiyaha kuma tilmaami karo madaxweynaha qarankan soo dhaweynay hogaamiyaha ururka gobonadooyinka jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya mudane Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Mahday aad runtii boqolkiiba boqol waa hogaamiye tayo sareysa leh aragti dheer leh mu'aasas ah waxa weeye qadiyadda iyo maxaan ku dhahay rabitaanka shacbiyadda reer Ogaadeenaya ka taliya aan filayana inuu yahay hogaamiyaha siyaasadda geeska Afrika laga dambeeyo ama aabaha iyo maxaan ku dhahay gurguryaha siyaasadda geeska Afrika ahna mu'asaska ururka runtii aad iyo aad baan maanta waxaan ku dhahay farxadeedu waa boqolkiiba boqol shucuurtay u kacsan tahay ma jiro waan dhihi karaa dad ayagoon loo yeedhin maxaan ku dhahay meel iska tago oo xamaasad la taga annaga ka hayn ma jirtaan dhihi karaa sababtoo ah waad aragtay madaxda deegaanka ugu sarreysay kuwa federaalka ugu sarreeyay markay imaanayaan weli soo dhaweyn wax u muujinaya aan ma arkin shacbiyad maxaan ku dhahay ayagoon la soo abaabin iyagoo waxba loo sheegin iskood ku imaado maanta 12 intay soo baxaan maxaan ku dhahay afartii subax ama maxaan ku dhahay 10 subaxnimo soo baxaan sida ay u taagan yihiin saacadaas ku soo watiyo gudoomiyaha annaga hore ma jirto waxaan leeyahay cimrigiisa Allah raajiyo Allah noo dhowro waxaan rajaynayaa inuu tub wanaagsan oo ummadda ay ka tashigeedii rabitaankeeda maxaan ku dhahay xurriyad ama gobonimo doonanimo ah inuu nagu hagi doono hadduu Ilaahay yiraahdo waana maxaan ku dhahay ka rajaynaynaa waana ka sugaynaa waana uga fadhinaa waana ka malaysanaynaa inuu nagu hagi doono maxaan ku dhahay hadalku ninna si dhanna si u qaado baa yiri waxaan ku dhahay Soomaalidu gudoomiyaha ururka ONLF ay waxay la tahay zambal yar bay la tahay laakiin anna agtaana wuxuu ka yahay waxaan ku dhahay runtii wallahi buurta maxaan ku dhahay karamar dhow naga culus yahay naga miisaan badan yahay oo mas'uulkan iyo madaxiisa Allah sareeyo
una malayn maayo inuu shacbiyadaannada meel xun ku hagayo aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa mar koobaad mar labaad iyo mar saddexaad baa soo dhawow waan leenay guddoomiye maxaan ku dhahay beesha caalamkana waxaan ka rajaynayaa inay u aqoonsadaan hogaamiyaha geeska afrika iyo aabbaha nabadda waad mahadsantahay walaal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهرين مدن قدوم الحيوان أبان وفرح سنة يسود وينتا قدوميها أورك وفد لسه عضو ديار سي وعن سلام هي أساس وكلا الحمنا قرها دحاء أورك ويوينكا iyo martida farxad baan noo tahay runtii inaan jigjiga ku soo laabanay mar labaad shaqo dheer kadib waxaa kaloo farxad noo ah waddankeenna inuu weli uu yahay meesha ugu fiican dhulka etoobiya la yidhaahdo kolley bulshadeenna sugaysa war saxaafadeed iyo hadalba waa iman doonaa hadda waxaan rabaa inaad maaragtay aad mahadcelintaada aan ku daro aad bay mahadsantihiin waad mahadsantihiin ogaadeenaya soomaalida ogaadeenaya ha israacdo cadowgeeduna ma dhaco innagu dhaqaalana ma raadinna mushaarna ma qaadanno waxaan wadna een u halgamayna waxaa weeye waa qadiyadeenna waxaa halkan taagan naafadii iyo ciidankii iyo gabdhihii la kufsaday oo dhan baa taagan waxay dhibkaa u mareenna waxaa weeye inaynu ka turjunno oon xaqiijinno qadiyadda xaqa aynu inagu leenahay sidaa daraaddeed waxaad ogtihiin waxa laynagula dagaalamaya inay tahay inayna lacag ahayn inayna mushaar ahayn inayna dahab ahayn inayna beer ahayn waa qadiyadda waxa laynoo necab yahay waa qadiyaddu marka waa mid qaali ah ma aha wax raqiisa kumanaan wiil baa ku dhimatay kumanaanna inay u dhimataan laga yaabaa waxaa weeye marka wakhtigan aad taagantihiin iyo shaqooyinkiinnii iyo meheradihiinnii waxaad u soo xidheen xubnaha ururka iyo taageerayaashooda waxaa weeye inuu wax inaga maqan yahay baan dareensannahay waxba aynaga maqan wixiina 40 sanaan u soo halgamaynay iyo ilaa halgamadii ka horreeyey weli maynaan xaqiijinin laakiin raadkeedii baan haynaa oo toosan insha allahu tacaala waxaynu rajaynaynaa inaynu goordhow heli doonno qalbigeennu waa inuu noolaado tallaabadeennu waa inay nooshahay hadalkeennu waa inuu nool yahay waa inaan layna leexinin waddada aan ku soconnayn ku soo soconnayna waa inaan ku socon doonnaa insha allahu tacaala gudoomiyaha jooxo howlgal badan buu ku maqnaa ma aha inuu diinaar iyo dirham ku maqnaa ma aha taasaana lagu colaadinayaa ururkana taasaa lagu colaadinayaa qadiyadeennu marka waxaa weeye halkaasaynu marina doonnaa insha allahu tacaala halgankanna wuu socon doonaa waana ka mina dhalinaynaa insha allahu soomaalida ogaadeenaya ha israacdo ha guulaysato cadowgeeduna allaha soo hanuuniyo hadduu hanuuni waayana allaha arooriyo guulaysta insha allah aad iyo aad buu mahadsan yahay dhammaan inta ka soo qayb gashay madaxda cuqaasha ugaasyada ugaaskaygii fawzi aan arkayey ilaahay madaxiisa ha raajiyo dhallinyarada iyo gabdhaha waad mahadsantihiin